الله أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لذا دماتي سوري هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولي waxaa noo socda casharada imtixaanaha ah ee ku saabsanaa maadada quick bookska بإذن الله الكريم soo wada dhawaada caawan clipkan video waxaan idin kula wadaagi doonaa qaabka loo abuuro shareholderska mid walbana loogu transfer gareeyo lacagiisa ama qaabka oo lacagaha oo leeyahay بإذن الله الكريم dhammaantiin soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين سودا ولالada إن شاء الله بإذن الله الكريم weli waxaa ku guda jirnaa casharadan ku saabsanaa computerized accounting-ka gaar ahaan quick bookska بإذن الله الكريم dhammaantiin ka faa'iideysi wanaagsan soona wada dhawaada waxaa rabaa caawa cashirkeena inaan idinkula wadaago boldiyaan oo videogaas wada aragno cashirkan hore wuxuu ahaa sida loo create gareey company-ga aan kusoo barnay sida company-ga loo abuuro iyo sidoo kale waxaa kusoo barnay sida loo abuuro beginning balance-ga waxaan soo abuurnaa waxay ahayd bangiga soo abuurnay direct cash on hand ka dhigan kartaa bangiga soo abuurnay waxaa kusoo sameysanay lacag kusoo shubanay kadib waxaa qarinay shareholderska straight wuxuu noo siiyay waxay ahayd daraad opening balance akoon la dhahayo opening balance-gaas akoonka la kirdhido mar walba ka bataa waxaan u taagan tahay waxay tahay dhammaan lacagaha ay leeyihiin shareholderska caawana waxaa rabaa inaan kula wadaago videogan qaabka loo abuuro shareholderska iyo lacagaha qaabka loogu transfer gareeyo insha Allah hadduu waqtiga dheeraanin hadduu waqtiga dheeraadana weega dambe waxaa ka dhiganaynaa sida loo transfer gareeyo insha Allah hadda waxaa tageynaa quick bookskeena daraad waxaa ku ogaanaynaa hadda waxay tahay balancegeena lacagyo daraad aa sameynay email-ay kala galeen balance-ga markaa galaysid waxaa ka ogaanaysaa reports-kana soo galaysaa meelo badan laga fiiriyaa jirto memorized-kana gali kartaa kadib waxaa gali kartaa ama si toos waxaa u aadaynaa marka soo report-ka waxaa tageynaa financial and company and financial kadib waxaa tageynaa inta waxaa ka ogaan karnaa income-keena hadda income-keena 0 waaye waxaa rabnaa inaan ogaano balance-geena insha Allah marka income-ka sameyn meelahan ka ogaanayna waa balance-geena waxaa ka ogaanaynaa report-sa soo gal report markaa galan financial la dheena kadib waxaa raadinaynaa balance sheet standard ka qubsanaynaa marka balance sheet standard ku qubsano waa kaas daraad waxaa sameynaa waxay ahayd primary bangiga waxaa soo gashan lacag gaaraysa ilaa $100,000 waa beginning balance-geena sidoo kale opening balance equity-geena waxaa waaye $100,000 oo si straight ama si toos ah noo siiyay lacag haddii uu ahaa lahaa application-ada kale sida Dagizigo kale ama Big3-ga waxayna qaleed inaa kala sameynaa gacantan aan ku gelin laakiin kan si direct ah isku gelinayo friendly-na waa dadka inta badan waxay isticmaalaan waxay tahay adduunyada ilaa Soomaaliya Muqdisho meel walba aato quick bookska loo badan yahay aad u fudud yahay waxaan u moodaa kulligood inuu ka wada sahlan yahay marka insha Allah ka faa'iideysi wanaagsan caawan waxaa create gareynaynaa waxay tahay sida loo abuuro equity-ga ama sida loo abuuro shareholderska marka abuurna sida kubi ever sameyn jirnaa camal sameynaa waxaa dheenaa qaab badan loo abuuro jirto oo wada baranaynaa control A dhahaneynaa control A markaa dhahan kadib haddana waxaa dheenaa control N insha Allah si kale loo abuurno baran doonaa kadib waxaa markaan intaan soo gaarno daraad bangi mar walbana waxaa qasbay marka hore inaa lacag ama cash on hand ama wax bangiga aad dhigatid ama bangi aad abuurtid hadda daraad primary bangi aad abuurnay kadib hadda maanta waxaa sameynaa equity shareholderska waa la wada qariyo waa wada ogeyn equity soo doorto kadib waxaa dhahaa continue qof walba oo shareholders oo meesha wax ku lahaay meeshaan mid ayaanu keenay insha Allah slide-keena waa kana intaan oo magaca inuu soo siiyay Mr. Khalid Miss Aisha iyo Mr. Ali marka insha Allah waa kan hadda waxaa sameynaa kulligood waa soo wada kaliya gareena magacyada lacagta ma soo siinayay inta marka ugu horeys waxaa sameynaa Aisha marka abuuro waxaa sameynaa waa soo koobiyeysanaa mar walba qofka account name-kiisa xagga description-ka asaa ka dhigay meeshaan keena waa ku baasti gareysanaa waa kan already hada Aisha waa abuuray marka Aisha saan soo abuuro kadib waxaa sameynaa waxay tahay marka lacag rabo balance-ga inta gelinaa waa marka bangiga wax soo abuura laakiin hadda inta ku siina transfer lacag ku siin kara waxaa sameynaa save and new waa lacag daarna ka baxda save and close hadda shareholderska la 4 ilaa 3 gaarayaan waxaa dhaha save and new kadib qofka labaad abuura waxaa kale ku jira Mr. Ali Ali waa kaas waa create gareena Ali kadib waa qabanaa waa soo koobiyeyna shareholderska sameeyay qaabka loo abuuro waa meesha description-ka u qoran sidii sameeyna haddana save and new waa aad iyo aad u sahlan yahay haddana waxaa sameeyna in shareholders markaas ay qaabka u abuuri lahayd waaye Mr. Khalid ayuu jiro Khalid
qaalid kadib waa qabanaa waa soo koobiyeysanaa descriptionka keena waa ku baastagareysana save and close markaan dhaha ilaa 3 bas aad soo awranayay inta hadda waxaa ku ogaanaya equity-geyga iyagoo lacag ah haysanin ama magacada ka arki karaa Aisha Khalid Ali waana ka 00 way haystaan kadib hadda waxaa sameynaa shareholders ka soo awray mid walba waxaa rabaa inaan siiyo lacagtiisa inaan soo transfer gareeyo qaabadana loo transfer gareeyaa cawad mid walba hal qayb idin tuso insha Allah 10 dambe waxaa ka dhigaa sida step-ka loo sameynayo waa soo transfer gareysanayna lacagta qof walba lacagtiisa siinayna insha Allah 100 kuna inta kala qaybina arjayna marka hadda waxaa sameynaa inta lacagto sax ku siinaa 15 kun 100 kuna rabaa hal mar intaan isku si qof walba equity-ga oo leeyahay kasi beginning balance-geyga inaan 0 ka dhigo waxaa sameynaa inta waxaa ka dhigaa 50 kun labadan kun waxaa kala siinaa 25 kun iyo 25 kun 25 kun qofkan kalena waxaa siinaa 25 kun hadda marka waxay noqonay qaalid waxaa siinaa 50 kun Aisha waxaa siinaa 25 kun master calna waxaa siinaa 25 kun opening balance-geyga 0 ka dhigaa rabaa qof walba opening balance-gana hadda sharxaad jiro comment ka sii waxa waa marka la qarinayo qofka shareholders-ka la rabin in magaciisa loo ogaado kadib waxaa tagaa meeshan activity tagaa activity marka taga waxaa raadinaa transfer fund ku dhufanaa marka transfer fund click ku siisto meeshan from waxay u taagan tahay ka socoto tuuna waxay u taagan tahay ku socoto markaan tu u taagan from waxa ku socoto waa cagsi waaye sida u naqaan jirnay waxay aad from qofka ka socoto tuuna qofka ku socoto waaye marka kuwii buuga application ku waa qaldamaya Allah kadib markii adduunka dhan ay wada isticmaaleen gadaal waa laga bedeli waa la iska dhaafaa loo qaatay marka mar walba cagsiga la ogo from markaan waxay kugu taagan tahay ku socoto tuuna waxay kugu taagan tahay ka socoto cagsi waa marka hadda marka yaa lacag rabnaa inaan ka soo qaadano from inay ahaatay aad ma beginning balance-gina ma naqanayso inta qaadana tu ka socoto waa lacagta beginning balance ka soo dooranayna tan kasto waxay waa ku wareeray laakiin adoo degan waa sameyn kartaa transfer fund tu mar walba waxay kugu taagan tahay qofka waxa ay ka socoto evelna waxaad ku socotaa ma cagsiga mar walba hooseeya waxaa gashataa opening balance-gaaga intan qofka magaciisa hadda qaalid oo kale inta waa ka helaa cali waa ka wada helaa cali oo ahaa umaleena maya qaalida 50 kun iyo qaalid soo qaadanaa qaalid marka dhoo magaceeda saarta oo kalsiin kartaa meeshan ay qorantaa transfer amount lacagta balance-geyga waa 100 kun akoonka had rabnaa siin waa 0 hadhow lacagta marka 50 kun inta ku qoro xagga 50 kun inta 50 kun inta transfer amount ya taga kaliya ku siisanaa kadib 50 kun oo lacag gelinaa waa ka 50 kun geli 50 kun marka geli kaliya meel banaan iska siinaa already waxay noqonaysaa lacagti oo xosiina ama save and new waa dhaha save and new marka dhoo already waa ka saa qaalid 50 kun oo qaatay amount-geygan hadda waa arkeena qaalid hadan ka soo bedela waxaa dhahaa cali marka dhaho inta imaana sidii day opening balance-ga soo doorana hadan inta mar walba waxaa siinaa lacagta soo qaatay 25 kun hadan save and new waa dhahaa lacagta balance-ga waa 25 kun inta 25 kun oo 0 balance-geyga qana asla arkeena qofka ugu dambeeyna waxaa waaye Aisha waxaa siinaa inta opening balance laga rabo sorry opening balance equity-geyga waa ka soo dhufsay kadib waxaa tagaa Aisha waxaa siinaa idan 25 kun waxaa rabaa inaan opening balance-geyga ka dhigo 0 hadaa waa salbado intuu yahay waa ka opening balance-geyga ugu dambeynta 0 noqon doonta kadib waxaa dhahaa save and close marka dhoo waxaa raadinaa ereyga opening balance inta lacag ugu jirtaa fiirina opening balance inta lacag ugu jirtaa fiirina waa ka saad opening balance-geyga falaarta la fiirino waa kaas opening balance-geyga hadda waa 0 saddexda qof lacag soo kala si equity-ga hadana fiirsanayna qaalid waa kaas wuxuu haystaa 50 kun cali wuxuu haystaa 25 kun Aisha waxay haysataa 25 kun bangigeygana waxa ugu jirto 100 kun marka saas hadda cawada waxa ku barana waxay tahay sida loo create gareeyo shareholders-ka hadana loogu transfer gareeyo lacagooda ama loo siiyo marka insha Allah ka faa'iideyso wanaagsan maray daqiiqadana 10 daqiiqo noo dhaafto waxaan rajeynayaa insha Allah inaad si fiican u fahmi doontaan dhamaantiin soo dhawaada wax walba isdhigi kartiin way ka tagtay ama uu ka maqan yahay biidnillah comment-iga igu soo qora dhamaantiin soo dhawaada ka faa'iideyso wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh